culimada Soomaaliyeed ee qurbaha soo galay waxay dadaal dheer u galeen inay bulshadooda iyo tan muslimiinta ay gacan ka siiyaan sidii ay diintooda iyo dhaqankooda u ilaashan lahaayeen iyagoo aasaasay masaajid iyo madrasooyin cilmiga laga barto waxay sidoo kale sameeyeen dadaalo lagu caawinayo dadka ku dhiban gudaha Soomaaliya iyagoo ka qayb qaadanayay musiibooyinkii dalka soo maray sida abaarihii fatahaadihii iyo dhibaatooyinkii ka dhashay qaraxyadii dadka badan lagu waxyeeleeyay iyagoo oo dhaqaale ka qaadayay dadkooda kuna celinayay dadkooda waxay taasi ugu dareen naftaada ka qaado naftaada si waxyaabaha ay abuureen waxaa ka mid ah hay'adda Haro oo ah hay'ad qayri ah oo dalkeena Soomaaliya ka sameysay deeq bixin iyo caawimaad dadka noloshooda hooseyso sida agoonta dadka xanuunsan ceelasha biyaha abuurista shaqooyinka yaryar dib u howlgelinta beeraha qaarkood iyo waliba qoysaska xooluhu ay ka dhamaadeen in loo abuuro xoolo oo la siiyo xoolo kale hay'adda culimada aasaastay waxaa ka mid ah Sheekh Yuusuf Cabdi Cabdulle oo hadda ah gudoomiyaha hay'adda iyo Dr. Maxamed Xasan oo ka mid ah xubnaha hay'addan waxaan kula kulmay Columbus Ohio waxaan wax ka weydiiyay sababta loo aasaasay Haro waxay qabteen halka ay higsanayaan iyo waliba sida ay dadku u arkaan waa kan Dr. Maxamed Xasan oo ka hadlaya amuurtaasi Bismillahir Rahmanir Rahim alxamdulillah wassalatu wassalamu ala rasuulillah wa ba'd kulanti wanaagsan maanta insha Allah ta'ala waxaan rabnaa inaan warbixin idinka siino inaan idin sharaxno inaan maaragtay idinka soo gudbino waxqabadka maaragtay hay'adda Haro oo aan aniga kamid ahay board memberkeeda especially u jooga magaaladan Columbus Ohio Haro waa humanitarian African Relief Organization in badan oo idinka kamid ah waxaad maaragtay qayb weyn ka qaadateen Haro barnaamijteeda iyo kaalmada dadweynaha ay Haro wax gaarsiinayso ee dhibaataysan ee dalkii ku dhibaataysan Haro waxaa la aasaasay 2007 hadda waxay dhisan tahay taqriiban 13 sano ayana shaqaynaysaa 13 sano si aad u heer sareysa oo guulo aad iyo aad u waaweyn ayay maaragtay hawsheeda ku gudatay ilaah baa mahadlay subxaanahu wa ta'ala lacagtii iyo maaragtay deeqdii la idinka qaaday si hufan oo wanaagsan baa loo gudbiyay dadkiina waxtar weyn ay u yeelatay qofka doonaya inuu maanta wax weyn uu ka ogaado kaalmadii uu geystay ama walaalaha kale kaalmadii ay geysteen waxtarkeedii iyo wixii lagu qabtay waxaad geli kartaan harousa.org halkaasoo welibana aad kaalmo iyo deeq iyo donationba aad ka bixin kartaan Haro walaalayaal muhiimadda loo aasaasay waxaa ugu weyn gargaarka bulshada inay gargaarto marka waxyaabaha emergency-ga ay yimaadaan emergency relief waxaad la socotaan daadad baa yimid waxaa yimid maaragtay duufaanaa yimid waxaa yimid maaragtay xanuunaa yimid waxaa yimid magaranaysaa maaragtay umuur fara badan baa timid oo dalkii ku habsatay waxaa ugu waaweynaa abaarihii dhacayba ka mid ahaa qayb weyn bay ka qaadatay lacag 100,000 ah bal maaragtay mararka qaarkood 1 milyan 2 milyan 3 milyan bay dalkii geynaysay si dadkaas ama sheltaro loogu sameeyo oo ay ku hoydaan ama bustayaal ay maaragtay hogsadaan ama marakaneeco ay maaragtay ka galaan magaranaysaa iyo cunto mawjada waxa intaas u sii dheer Haro in ay qayb weyn ka qaadato oo kale agoonta iyo ka warhayntooda agoon fara badan baa dalkii jirta oo joogta agoontaas waxay u baahan yihiin in la daryeelo xagga nafaqayntooda xagga magaranaysaa hooygooda xagga waxbarashadooda intaba Haro waa ay ku dadaashay sidoo kale indhoolayaal baa jira oo maaragtay maantay hay-ado u gargaaraya iyo dal iyo magaranaysaa umuur waxqabad u sameynaya aysan jirin hay'adda Haro waxay noqotay number 1 hay'adaha dadka noocaas oo kale ururiyay oo dadka agoonta ah iyo dadka maaragtay indhoolayaasha ah magaranaysaa qayb weyn maaragtay wax gargaar weyn u geystay Haro walaalayaal mashaariicdeeda aad bay u fara badan tahay
waxaan nala jooga insha allahu tacaala oo maantay halkan nasiibaan u yeelanay inuu na soo booqdo isagoo welibana u yimid mashruuc yani maaragtay muxuu aha agoonta ah iyo indhoolayaasha hay-adda harana ka socda yimid magaaladan Columbus ee gobolkan Ohio nala jooga weekend dhigan farreysino iyo maaragtay muxuu aha tabarucaad ururinteedana u jooga ilaahay mahadiis ayaa nala jooga Sheekh Yuusuf Cabdulle oo ducaada dalka Mareykanka ah kamid ah beeskiisana uu yahay magaalada maaragtay muxuu ahaa Minnesota marka saan sheegay haro oo la aasaasay 2007 laguna aasaasay magaalada San Diego haddana beeskeedu u soo wareegay magaalada Minnesota wax qabadkeeda iyo maaragtay muxuu ahaa hadda mashaariicdu meesha ay marayaan meesha ay higsanayso warbixin waafiya waxaa naga siin doona insha allahu tacaala fadiilatu sheekh yuusuf cabdulle ayaan kusoo dhaweynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala juhdigiisa ha barakeeyo ragga sidoo kale maaragtay muxuu ahaa la wada oo la hogaaminaya mashruucan ilaahay subxaanahu wa tacaala juhdooda allah ha barakeeyo sida akhuna sheekh cali oo kale sheekh cali xaaji director kaharo akhuna sheekh fadiilatu sheekh aan kusoo dhaweyn doono insha allahu tacaala sheekh yuusuf idinkana waxaan maaragtay muxuu idinku baraarujinayaa qof kastoo na maqlaya qof kastoo fariinteena ay gaarto qof kastoo weedheena ay gaarto in hay-adan Soomaaliyeed waa hay-adda kaliya ee Soomaaliyeed ee maaragtay muxuu ahaa in badan oo gargaar ah oo dalkii wax ka qabatay min daraf ilaa daraf markaan saa leeyahay waa min Raas Casayr ilaa Raas Kamboni meel ka xayar inaysan jirin magaalo kasta oo istaagtay raadkeedana uu muuqdo in idinkana maaragtay muxuu ahaa aad ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dhawaataan irxamu man fi lardi yarxamukum man fi samaa صلى الله وسلم وبارك على محمد. يوسف cabdulle oo ah gudoomiyaha xilligan ee hay'adda haro ayaa dhankiisa si fiican u faahfaahinaya hawlihii ay ka qabteen Soomaaliya iyaga oo fadhigooduna uu yahay Mareykanka gaar ahaan Minnesota. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. magacaygu waa Yuusuf Cabdulle waxaan ahay directorka hay'adda haro إن شاء الله وحان ربا هالكان إن أن وحكو دارو أما أن سيدا ما يستيرو هذا الكي ولكن دكتور شا محمد حسن أو أهبور كهي أدى هارو الدكتور كهالي هي أدو يوحي أتاقن تهي Humanitarian African Relief Organization وهي أد قرقار وودن كان إني عاوز الله ترقالي حلقة الأساسي وحكشي كي شاقة وحيابها لو أساسي هي أدان وحاقو مهم سن إن دادك صوماليات la gaarsiiyo wixii caawimaad ay la gaarsiin karo in la gaarsiiyo baahida waxa runtii aad loo dareemay gaar ahaan markii ay adkaatay qofka in uu lacag diro haduusan qaraabadiisa u direynin iyo dadka markaas u dhow uusan u direynin inuu lacag diro way adkaatay waxa kale oo adkaaday masaajidii iyo maraakistii iyo mujtamacii meelihii uu lahaa inay lacag diraan way adkaatay iyadana lacagta waxaa loo baahan yahay in loo maro sharci iyo hab nidaamsan in loo maro oo hay-ad ay jirto wadankana xilligaas 2007 waxaa ka jiray colaado aad u tiro badan iyo abaaro iyo dhibaato aad culus baa ka jirtay marka arrintaasi waxay keentay baahi ah in la helo hay-ad Soomaaliyeed oo dadkii Soomaaliyeed wax ka aruurisa dadka Soomaaliyeedna wax u aruurisa waa waxay Soomaalidu dhahaan naftaada ka qaad oo naftaada u qaad arrintaasi kadib waxa isu yimid dad culimo iyo akhyaar ah oo talo isku yimid waxaana la go'aamiyay in la asaaso hay-adan waxa lagu asaasay gobolka California magaalada San Diego 2007 aakhirkeedii rag walaala ah baa guddi ka ahaa Cali Xaaji Cabdinuur Sheekh Cali Xaaji baa madax looga dhigay oo hay'adda madax ka ah intaas markii la sameeyay hay'adda mujtamacii Soomaaliyeed ee deganaa Mareykanka ama hadda ganaadeen New England iyo dhinacaas fog ee bariga fog ah wadanka sida Boston iyo Portland Maine iyo dhulkaas ama hadda ganaadeen dhinaca kale geeska kale oo Seattle Washington iyo San Diego iyo
dhinaca galbeedka ah iyo inta u dhaxaysa Minnesota, Ohio, Georgia, Tennessee, gobolada Soomaalida yani Arizona, gobolada Soomaalida ku fiirsanayeen oo dhan ay ku xoganayeen ayay ka howlgashay in dadka wax laga aruuriyo, wax laga qaado masaajida, wax laga aruuriyo dadka jooga, xaflado iyo barnaamijyo la qabto wax loogu aruurinayo dadkaas. waxay ku bilaabatay hay'adda qaabkaas ay ku bilaabatay iyo baahidaas emergency-ga ah oo jirtay in ay wax ka qabato oo dadkii wax lala gaaro. runtii sida Sheekh Maxamed uu tilmaamayna wax weyn ba arrinka ka qabsoomay. abaarihii ka dhacay wadanka oo kala duwanaa 2011 abaartii dhacday oo ihsaa'iyaadka ama statistikada marka la fiiriyo 250,000 oo qof sida UN-ta ihsaa'iyaadkeeda ay sheegeen ama statistikada UN-ta nambaradeeda 250,000 oo qof ba abaartaas iyo wax abaarta la xiriira, xanuunada la xiriira iyo gaajo ama nafaqo darro ama haraad abaartaas ee sababteeda ah ay u dhinteen oo Soomaali ah 2011 waa 250,000 oo qof. waad garanaysaa cadadkaas inta u dhan yahay. berigaas wixii ay qaban kareen hay'addu waxay qaban kartay bay qabatay oo ay yani gargaar ah. abaartii ku xigtay oo Soomaalidu ay u bixiyeen sima ay u bixiyeen oo macnaheedu yahay wadanka dhan ayay sintay, waqooyi ka soo bilow geeska ilaa iyo geeska kale ee koonfur inta u dhaxaysa way sintay. abaartaas waxay dhacday 2016 iyo 2017. runtii hay'adda Haro abaartaas waxay ka geysatay gargaar aad iyo aad u weyn bay qaybisay gobolada waqooyi, Togdheer, Sanaag iyo Sool, gobolada dhexe sida Galgaduud iyo Mudug qaybo kamid ah, ilaa iyo Gado iyo Jubbooyinka ayay runtii gargaarkeeda wada gaarsiisay barigaas. dad badan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku badbaadiyay biyo dhaamin haday noqon lahayd, raashin siin haday noqon lahayd. emergency-gaas runtii hay'adda aad iyo aad bay uga soo dhalaashay xaaladaas emergency-ga. dadkii ogaana way wada qirsan yihiin ama dadkii wax loo geeyay ha noqdaan ama dadkii wax laga aruuriyay ama dadkii ka qayb qaatay oo meeshaba tagay ha noqoto. emergency-yada dhacay waxa kamid ahaa qarixii Zobe 2017 bishii October 14-keedii oo runtii hay'adda ay aad ugu gurmatay iyo mujtamaca Soomaaliyeed gurmadkii ay galeen ay geysay oo dadkii wax la gaarsiiyay. emergency-yada ay ka qayb qaadatay hay'adda waxa kamid ahaa duufaanadii wadanka ku dhacay sida tii 2018 duufaantii ku dhufatay gobolka Awdal ee Sagar loo bixiyay. duufaantaasi oo dad iyo dunyaba yani wax gaarsiisay, gaar ahaan dunyada hay'addu qayb bay ka qaadatay in isla markii dadka u gargaarto iyo intay xoolo iibiso in dadkii loo celiyo, xoolo lagu celiyo baadiyahoodii ay ku noqdaan qoysas aanan runtii yarayn. alxamdulillah. yani duufaanadii ku dhuftay bari, gobolka bari iyo Puntland areadaas runtii qayb weyn oo lixaad leh bay hay'addu ka qaadatay oo yani haday noqon lahayd dadkii in xoolo loo celiyo xoolihii ka baaba'ay, haday noqon lahayd kuwa guriga ka burburan guryahoodii dib loogu dhiso, haday noqon lahayd kuwa markaas degdeg u baahnaa oo wax la gaarsiiyo. hay'adda waxyaabaha emergency-ga runtii wax ka qabatay waxa kamid ahaa daadadkii ku dhuftay wadanka ku dhuftay gaar ahaan meelaha webiyaashu ay maraan. gobolka Hiiraan iyo magaalada Beledweyne oo ku soo noqnoqdeen oo 2018 ay 18 ay gargaar gaarsiisay, 2019 gargaar kale oo aad iyo aad lixaad u leh ay gaarsiiso. waliba aniga shakhsiyan aan tagay oo gargaarkaas aan gacanteeda ku qaaday, gacanteedana ku soo qaybiyay. waxa kamid ahaa duufaantii ku dhufatay meesha la yiraahdo Qardho oo mujtamaca Soomaaliga ay u gurmadeen iyo gobolka Nugaal sidoo kale ay ku dhufatay oo ayadana la gaarsiiyay gargaar la gaarsiiyay oo culimadii iyo dadkii ka qayb galay iyo dadkii loo dhiibay oo gacantooda la galiyayna ay marqaati ka yihiin maanta ay og yihiin. waxa kamid ah hay'adda waxyaabaha
emergency-ga ah oo runtii ay gargaartay dadka marka ay cudurradu dilaacaan, xanuunada markay dilaacaan. hadda waxaa u dambeysay COVID-19kii hadda socda oo weli adduunka dhibaatada ku haya. waxaan gargaar gaarsiinay Somaliland oo aan ku wareejinay qalab caafimaad, aan ku wareejinay wasaaradda caafimaadka oo walaalaha wakiilka ka ah hadda haro ee Hargeysa jooga ay u gudbiyeen oo ay ku wareejiyeen wasaaradda. sidoo kale Puntland waxaan ka qaybinay qalab caafimaad oo iyadana ay walaalaha xafiiskeena Garowe ay wareejiyeen oo ay gaarsiiyeen hay-adihii iyo mataqaanayay wakaaladihii ama wasaaradihii markaas hawsha iyada u qaabilsanaa. magaalada Muqdisho sidoo kale COVID-19ka waxaan gaarsiinay sidoo kale qalab caafimaad iyo waxyaabaha yacni uu la iska ilaalin karo, la iskaga ilaaliyo ama looga hortago yacni sida waxyaabaha ka hortaga ah, gacmo dhaq ha noqoto ama maaska ha noqoto ama qalab kale ha noqoto ayaa iyadana la gaarsiiyey oo la guddoonsiiyey hay-adaha ku shaqada leh arrintaas iyada ah. magaalada Muqdisho xafiiskeena magaalada Muqdisho magaalada Afgooye daadadkii ka dhacay iyo fatahaadihii ka dhacay maalin dhaweyd ayaan mar dhow xilliga COVID-19 waliba markuu dhacay kadib ah ayana runtii gurmad fiican ayaa la gaarsiiyey oo loo gurmaday oo dadkii halkaas joogay loo gurmaday. waxyaabaha hay-addu ay policygeeda ama siyaasaadkeeda ka mid ah oo aan dhihi karno waa ku soo kordhinay ama waa lagu soo kordhiyay saaxada waxaa weeye in waxa dadka aan gaarsiinayno oo emergency-ga marka lagu jira ah inaanan dibad ka doonin, inaanan ka doonin, inaanan dhar dibad ka doonin, inaanan daawo dibad ka doonin, inaanan raashin dibad ka doonin. waxyaabaha wadanka yaala inaan ka gadno oo markaa la siiyo wixii dadkii wadanka u baahida qabay in la siiyo. arrintaasi waxay keenaysaa laba arrimood. waa mid dhaqaalihii hay-adda ay soo aruurisay inuu wadanka galo, shilinka inuu wadanka galo oo ganacsatadii ay ka faa'iidaan, iyo wax la hubo oo la taaban karo oo tayo leh oo suuqii wadanka yaalay laga soo iibiyey oo daawo dhacday iyo raashin dhacay iyo wax dhacay aan ahayn oo wax walba wixii dadka caadiga ah oo soo gata ay cunahayeen ama isticmaalahayeen u yahay in dadkii masaakiinta la siin hayay in la siiyo oo wax quality-gooda liito ama hooseeyo ama raashin baqaar ku jiray 10 sano ama daawo dhacsan ama waxyaabo noocaas inaan la siinin. lacagtina inay gasho ganacsatada wadanka inay gasho oo dollarku markuu wadanka ku circulate gareeyo dad badan baa ka faa'iida. halkii dollar oo ku wareegta wadanka dhexdiisa ama suuqa dhexdiisa dad kale ka sii faa'iideysanaya. siyaasadka aan u dajinay way ka mid tahay runtii aad iyo aadna waa loogu mataqaanay waa loogu fiicnaaday arrintaas iyada ah. sababtoo tahay localka dhaqaalaha galo tuuladan markay wax ka dhacaan oo lacagtina la geliyo gargaarkiina dadkii la siiyo laba mar bay ka faa'iidayaan. xataa dhaqaalihii tuuladaas ama magaaladaas korba u kacaya. marka dhinaca emergency-ga waa intaas. wadankeena emergency-gu ku badan yahay maadaama way jirtaa hay-ad wadanka waxaa jirta taakulaynta iyo u qaabilsan, laakiin ma ahan dhaqaalihii loo baahnaa ma haysato, awoodii ay dowladuhu leeyihiinna ma haysato. marka wixii aan kabi karna dhinacaas ayaan kabnaa, mujtamaca Soomaaliya ka qaadnaa, mujtamaca Soomaaliya ku celinaa. waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha hay-addu ay qabato agoonta kafaalaqaadkooda. Sheekh Maxamed baa hadda ka sheekeeyey agoon badan baa wadanku dayacan, agoon badan ayaa ku dayacan, runtii aad u dayacan. agoonka waxaa lagu kafaala qaadaa $500 bas ah sanadka dhan waa $500. waxbarashadiis baa ku jirta, hoygiis baa ku jira, cunadiis baa ku jirta, guriga waalidkiis buu joogayaa, guriga waalidkiis ayuu joogaa. waxaa kaaga filan $500 oo aad canugaas kafaala qaadid. annaguna ilmahaas waxaan haynaa ilaa iyo dugsi sare u ka baxo, xataa maaha ilaa uu ka qaangaara keliya, ilaa dugsi sare u ka baxo. waayo waxbarashadana muhiim bay noo tahay. waxyaabaha waalidka ilmaha agoonka haysta aan kula shardino waxaa ka mid ah in canuga iskuul u dhigto, dugsi quraan u dhigto. canug dhisan oo wax bartay in uu hadhow soo baxo oo hadhowtina asna wax istari kara, dadkina wax tari kara. marka agoontaas inaad ka qayb qaadataan waa mas'ala aad iyo aad daruuri u ah.
waxaad geli kartaa harausa.org orphaniska waad ku arkaysaa haddaad click samayso sawiradoodii baa ku jira marka saa u gashaba sawirka ku soo baxay waxaad dhihi kartaa intaad email soo dirtay canugan baan anigu kafaalo qaadaya yaad dhihi kartaa gabar iyo wiil ku ahaadaba waad kafaalo qaadaysaa annaguna bil walba wixii aad ku kafaalo qaaday baan u dareynaa insha allah waxaa ka mid ah waxyaabaha aan qabanno oo joogtada ah marka waxaan kasoo gudubnay dhinaca emergency marka laga soo gudbo waxaan bilownay barnaamijyo horumarin ah barnaamijka horumarinta waxaa ka mid ah agoonka kafaalo-qaadkooda waxaa kaloo ka mid ah qodidda ceelasha runtii ceelasha aan qodnay 20 kor way u dhaafayaan sanadihii weliba dambe 2018 2019 waxaan bilownay xoogooda ayaan bilownay 19 iyo 20 inkastoo runtii covid u dhacay oo uu culays badan keenay waa ka hadli doonaa taas ayadoo saas jirta haddana hadda aan idin hadlaaya xaaliyan waqtigan aan idin hadlaaya ceel baa bay laga qodaya gobolka bay baa laga qodaya ceelna waxaa laga qodayaa mudug waliba ceelka mudug laga qodayo walaalo ahlu khayr ah ayaa isu tagay oo lacag fiican u soo aruuriyay lacagta ku baxaysa ilaa iyo 70,000 way ku dhawaanaysaa inteeda badanna waa la bixiyay wuxuu u baahan yahay dhamaystir runtii waa ceel weyn oon filayno inay يعني مقالوين إنه بيجليه أفرينه علاش برعيل وحكعب مالنتي average صدح بقول أو قف بكعبته average يعني العليس قار كبلن بكعبته قار كير بكعبته لكن مركل الأسبوع العليو average كودو وأفر بقول أو قف مركشان كون أو قف كبلن أي بردي يا كعبته يحوله هذا وقياس كرت مرك فائدة إلى هذا مسألة ده أصلا محاربة أنا وحير كإفتيميو mushkiladda Soomaaliya ka jirta marka laga soo tago isqabsiga iyo colaadaha dhaca wax mushkiladda labaad ee wadankeena ka jirta waxa weeye waa biyaha xanuuno badan baa ka dhasha dadku waa isku dilaan marka biyo la'aantu meesha ka dhacdo waa laga qaxaa culays baa community-ga kale yaa fuulahaya oo biyo haystay frictiono iyo isxarigjiid iyo dhib baa ka dhaca marka mas'alada biyaha in laga daaweeyo wixii laga daaweyn karo suurtagal ah waxyaabaha kale oo qabno waxa kamid ah dadka tabarta daran aadka u liita ayaan guryaha u dhisnaa qofkii markaas wixii aan u awoodno dadkaan uga aruurina guryaha u dhisnaa qoys agoona waxaan uga dhisnay mataqaanay afgooye qoys kale waxaan uga dhisnay meesha la yiraahdo Laascaano qoys kale hadda waxaan uga dhisaynaa bulo burte qoysas kale oo horey loogu dhisay waa jiraan kuwa kale oo hadda hawshooda lagu jirana way jiraan iskuulaadka waa ka qayb qaadanaa wixii aan markaas ku tari karno isbitaalada waa aan ka qayb qaadanaa dhisidooda isbitaal tuulo dandan la yiraahdo ku yaala oo walaalo ay soo qaban qaabiyaan runtii hawshiisa khayr Allah siiyo rag iyo dumar leh baa hay'ad mataqaan hay'adaha kamid ah oo bani abi la yiraahdo ayaan la kaashanay isbitaalka waa la dhisay qolofkiisa waa dhisan yahay waa diyaar waxaan u baahanahay maanta in aan qalabayno ayaan u baahanahay isbitaalkaas isagana xilliga waxaasna waxaa naga soo dhexgalay covid-19 ka naga soo dhexgalay marka hay-adda waxqabadkeedu runtii aad wax aan soo koobi kara ma aha waxaan rabaa marka in aan ku xijiyo xaggeen hiigsanaynaa waxaan hiigsanaynaa kow barnaamijyada hay-addu ay qabato in aan laba u qaybinay laakiin labadaas qaybood inaan focus kasii kala saarno qaybta emergency-ga inaan u sameyno budget emergency ah oo markay wax dhacaan intii la ordahayo oo waxa la arooriyay leeyahay in ay jirto lacag meel taala oo isla markiiba lagu gurmado inay jirto oo gargaar degdeg oo markiiba lagu gurmado oo kayd uu jiro hay-adda ah oo loogu talagalay arrimaha emergency-ga taas waa qodobka kale in barnaamijyada horumarinta ah in la tayeeyo la hormariyo oo la xoojiyo sida agoonta oo la kafaalo qaado runtii agoonkaas canuga wax la baro oo la kafaalo qaado marka uu weynaado oo wax barto oo uu shaqaysto dad badan buu wax taraya waxa kamid ah waxa la yiraahdo youth and employment dhalinyarta in la shaqaaleysiyo ama skills loo sameeyo xirfad in dhalinyarada loo sameeyo xirfado kala duwan oo tira badan baa jira marka xirfadahaas in la baro kadibna ay ku shaqaystaan wax badanna ma aha $1 baa laga yaabaa in lagu baro xirfad wiil dhalinyaro ah ama gabar dhalinyaro ah ay ku shaqaystaan waxa kamid ah waxyaabaha aan hiigsanayno runtii in aan sameyno dugsi iskuulaad farsamo
oo markaas lagu farsamada gacanta ah oo ay ka soo baxaan dhalinyar yacni runtii farsamadii taqaana oo wadankiina horumarisa ayagina mataqaanaa ka faa'iida waxaa ka mid ah in barnaamijka agoonta aan aad u xoojino waxaa ka mid ah in guriyeynta iyo dib u dejinta barnaamijka dib u dejinta waa muhiim boqolkiiba 75 waxaan la kulmay hadda ka hor Michael Keaton ninka la dhihi jiray oo UN u qaabilsanaa arrimaha Soomaaliya wuxuu ii sheegay boqolkiiba 70 waxay 2017 boqolkiiba 75 Soomaalida soo qaxda oo ka soo qaxda banaanada ama tuulooyinka ka soo qaxa abaaraha iyo colaaduhu qixiyaan ee magaalooyinka soo dibdaga in aysan dib u noqonin ma noqdaan boqolkiiba 75 dib uma noqdaan marka xirfad ma haystaan baadiyi waa ka imaadeen xoolihii waa soo dhaafeen gacan bay ku soo dhaceen dadkaas waxay u baahan yihiin in rehabilitation loo sameeyo dib loo dejiyo resettlement in dib loo dejiyo ayay u baahan yihiin Soomaaliya waxaa ku yaala 2,000 oo xero qaxooti oo local ah waxaa la yiraahdaa IDPs internally displaced populations waa dadka wadanka dhexdiisa ku qaxay 2,000 oo xero weeye ma aha 2,000 oo qof ma aha 600 oo kun bay kor u dhaafayaan dadkaasi runtii iyo kor u dhaafayaan meel eeriyooyinka qaarkood waxaa lagu qiyaasaa marka la isku geegeeyo 2.5 milyan inay gaarayaan 2 milyan iyo bar inay gaarayaan oo internal displaced waxay ka soo qaxeen meelahoodii xaafadahoodii iyo yacni ama tuulooyinkoodii ama baadiyahoodii xoolihii baa dhaafay waa meeshaani waxay noqdaan dulsaar iyo gacmo maran dadkaas waa mashruuc aad muhiim ah waxay u baahan yihiin in dib loo dejiyo dib u dejino waxaa jiro small scale oo yar oon sameynay oo runtii aad looga faa'iiday midka Awdal baa ka mid ahaa duufaanta Awdal waxaa ka mid ah midka bari ka dhacay waxaa ka mid ah gobolka Shabeellada Dhexe midaan maalin dhow ka sameynay covid-kan intuu socday aan ka sameynay oo ilaa 30 qoys aan dib ugu celinay tuulooyinkoodii dagaal ay ka soo qaxeen number 50 tuulada la dhaagteeda ahaa waa lagu celiyay hadda waxaa la siiyay waxaan siinay qalabkii deegaanka guriga iyo wixii ay cuni lahaayeen muddo 3 bilood ah si ay deegaankoodii iyo beerahoodii iyo dib ay ugu qabsadaan marka dadka waxa loo baahan yahay dib loo dejiyo haday beeraley ahaayeen qalabkii beeraha iyo dalagii la siiyo haday xoololey ahaayeen in xoolo loo iibiyo oo ay mataqaana dib ugu dagi karaan arigoo kale 10 neef hadii reerka loo iibiyo sanad kadib wuxuu noqonaa uu u badanaya 30 40 50 u badanaa arigu badan og yahay waayo annaga mujtamaceena waa mujtamac reer baadiye ah oo wax xoolo dhaqashaduna waa wax fiican oo dadku waa ku nool yihiin baladkii baadiyaha waa isku nool yihiin hadii wadanku dago carradu hagaagto waxaa la heli karaa hab fiican inta xoolaha loo dhaqdo in hadhowti xoolo dhaqashadu ay noqoto qayb muhiim ah oo sida hadda adduunka xoolaha looga dhaqdo oo kala ah xoolihii aanan ayaga la raacaynin ayagu aysan wax raacaynin ayaga la raacay yacni ayaga laga faa'iidayo barnaamijkaas waa barnaamij muhiim ah oo aan hiigsanayno barnaamijka waxbarashada waa barnaamij muhiim ah oo aan hiigsanayno barnaamijka awqaafta waa barnaamij muhiim ah oo aan hiigsanayno waa maxay barnaamijka awqaafta waxa weeye in hay'addu loo sameeyo hanti iyo dhulal xiriir agoon laga dhiso iskuulo laga dhiso santaro waaweyn oo hadhowti wixii ka soo baxa meelaha qaarkood xirada agoonta lagu dacmiyo gargaarka lagu dacmiyo oo ay noqoto awqaaf ama endowments ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin hadhowti wax ka tarta meelaha kale wax ka tarta maxaa loo baahan yahay oo adiga Soomaaliga ah iyo aniga nala ka raba dadkeena Soomaaliyeed waxaan nala ka rabaa inaan barnaamijka ka qayb qaadano hal qof oo la badbaadiyo waa wax weyn hal qof wax weyn waay dollarka aad bixiso runtii wuxuu wax tarahayaa wuxuu galayaa meel aadan filayn aad u weyn ayuu galayaa marka in qof kasta oo annaga naga mid ah inuu ka qayb qaato laba arrimood baa u qayb qaadan kartaa mashruuc marka taagan inaad ka qayb qaato midalan inaad tiraahdo anigu ceel baan qodayaa intaasaanan ceelkaas ku qodayaa xataa dhowr bilood aad qaadato 5 bilood ceelkan aan qodayaa lacagtiisana waan soo dhamaystirayaa adiga iyo asxaabtaada inaad tiraahdo agoon baan kafaalo qaadaya ama dhowr agoon baan kafaalo qaadaya $1,000 haddaad dhiibto sanadka dhan 2 agoon baad kafaalo qaaday
waa arrin aad iyo aad u weyn. waxaa ka mid ah in aad si joogto ah hay-adda wax ugu bixiso $10 $20 30 100 50 inta awoodda aad ku bixiso oo dollarkaagaasi marka uu galo in loogu shaqeeyo ama loogu adeego intaasoo meel uu ku galo oo aad noqoto sustainable donor. yani waxa weeye joogto qof joogteeya sadaqadiis joogteeya. waxaan rabaa inaan ku gabagabeeyo ku soo xiro haddana mujtamaca Soomaaliga ah annaga wax waa qabsan karnaa, waa isku filnaan karnaa, waa isgargaari karnaa, wadankeena waa dhisi karnaa, dib u dejin baa u samayn karnaa, waxbaa bari karnaa. yani laakiin waa inaan annagu iska dhaadhicino inaan annaga wax qabsan karno. arrintaa markayna gasho shardi ma ahan xataa hal hay-ad shardi ma ahan. arrintaa markayna gasho waxbaan qabsan karnaa. marka in aan yeelano mentalityga ah inaan dadkeena wax tari karno, in aan isu keeni karno, in aan dalkeena dhisan karno, in aan dadkeena dhibaataysan gargaarsiisan karno, in aan agoonteena kafaalo qaadi karno, in aan keena liita gacan qaban karno, in ay na gasho yani dareenka noocaas. maalintuu na galo waxaan aaminsanahay shakhsiyan in aan wadankeena uu hormarahayo uuna degayo insha allah. intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka gaabno aanu kaga hadlaynay waxqabadka hay-adda Haro iyo weliba deeqaha ay siiso bulshada Soomaaliyeed. deeqasoona ayaa idinla socodsiinaysay tan iyo kulanti dambana nabadgelyo.